أحمد إسماعيل سمتر oo socdaalkiisii labaad ku jooga dalka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabley. Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo socdaalkiisan ku yimiday magaalada Gabley uu ku wehelinay wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Habiib Diiriye Nuur ayaa ugu horeyn wuxuu kulan xog wareysi kula yeeshay xafiiska maayarka magaalada Gabley qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka iyo cuqaasha. horeyna waa kan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo xog wareysi la yeelanaya maayarka magaalada Gabley mudane Shucayb Maxamed Muuse. حروك يحفر يحسيد بيهو يعني روب الروب لكن هو درايف فهم سو رين فت ممكن نقول لك خطرة يدا ما يرسو صار يوم كان هو ربيع واحد شراء دور نوع يلي حروكها يقلي ده يخطر كلا واحد يكون بحكي وقت جا روات oo imika waxa jira ustaano waaweyn oo loo sameeyay inay roob ku baxaan fikradoodana leeyihiin marka hadii la fahmo way fiican tahay taas laakiin hadda badanka majority inta ugu badan ustaanada waxa loo sameeyaa ceelal looga qodo goobta oo goobta laga beerayaa ceel beelad oo dooxiyay marka waa la soo saarayaa dad saas loogu waraabinayaa beeri hadii imika bisha soo socotay ay jireen war markaan dhaafno waxaan geli doonaa bishii oo jiray diraac ama seermooyin ee waxaan suginaa waqtiga roobku sidiisa u daayay markaas dadka oo dhan macal dalka dhalinyarta ka joogta waqtiga inta xabka beera ay magaalada ka siidiyeen dib markuu kulankaasi soo gabagaboobay ayaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaan wax ka weydiinay inuu ku jiro damac siyaasadeed oo sabab u ah socdaalkiisan labaad ee uu ku yimid Soomaaliland waxaanu ku jawaabay professorku waa su'aal ballaaran horta dee maxaa ku dhahay ka qaybgalka dalkaaga inaad ka qayb gasho dadka hogaaminaya haddii lagu garto waxa weeye sharaf weyn wax sharaf ka weyn ma jiro adduunyada lagu nool sharaf ka weyn ma jiro marka haddii dee ay taasi waqtigeegu yimaado reer Gabley bay u taalaadeen haddii halkii aad ka timid aad ka dhalatay haddii lagaa waayo oo lagaa doonayn dee meel kale ma tegi karaysa intaasi kadib waxa Professor Axmed Ismaaciil Samatar khudbad cilmiye uga jeediyay hoolka dawladda hoose magaalada Gabley ardayda jaamacadda Timacade iyadoo gabagabadiina halkaasi ardaydu su'aalo kala duwan ku weydiisay Professor Axmed Ismaaciil Samatar ugu horeyna waa kan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka warbixinaya socdaalkiisan aad iyo aad xiiso weyn ayaan la yimid maalintii arbacadii baan yimid waan nastay khamiistii baan yimid waan nastay subaxii jimcihii waxoogaa ayaan dad yara sheekaysanay hadiisa hodheelkii iyo meel kale حاليا واحد من السكندرية اللي جامعة بيهدي سو يقول تطبق قول باليومي ما كنا بكرة واحد من يقول يكون إلى ما بقول يذكر ليش ودماغ كان يجوكسون هذا الموضوع شكل سنة هو طول سؤال هو نحسن هذا ممكن كويس وعن كل اللي مدحوينه إنه حاليا وده الجومي ما كان كاين فان يسوي اسكت لنا وجينا شكل سنة مدحوينها أحمد محمود هذا واحد كل واعتراف كإن سوماليلاند لو قرطو إنه يتحي وطن لغيهيسا كجو وبروسيكيسا كجو دلال كيدي هوشيدو أدبي وعدكتاي make no mistake about that أدبي وعدكتاي waa kan mar labaad Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka waramaya madaxda dawladda koonfurta Soomaaliya oo ku tilmaamay inay yihiin dilaaliin qaybaheeda xogta laakiin waxa isku haysataa inay Soomaaliya oo dhan oo kala ka tahay جديدنا وحوي الباك الدنيا ده أنت فريسته أنا كوكيل في جمهورية الصومال اللي نجري أنا كوكيل ما كان يجاوني لا سيد ودلالي وين ما كان عندهم ده إنجليز واحد ليب فروغ راهو ده مصر ده راهو مصر هو بغاصمة ليب فروغ ما كان نبغى حرمنا إن أنت سوون جوكسنو ليب فروغ su'aalihii halkaasi lagu weydiiyay Professor Axmed Ismaaciil Samatarna waxa kamid ahaa sida uu arko dooda qaranaya ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland Professorka oo su'aashaasi ka jawaabayana waxa uu ku jawaabay dooda qaranka very important aad iyo aad bay muhiim u tahay imika goor walba ummadda meel ku nool ee taariikh dhisaysa inay yeeshaan dooduna ma hawaankii la isku tuurayay
ما dood in hadal murti la isweydaarsaday inta doontaa qaadatay la isweydaarsaday gabagabadiina waxaa halkaasi hadalka soo afmeera oo khudbada ka jeediyay maayarka magaalada Gabiley mudane Shucayb Maxamed Muuse barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Case iyo wasiirka wasaaradda warshadaha Abiib Diiriye Nuur waa Cabdikariin Maxamed Cabdi Qaamuuska TV-ga caalamiga Royal TV gobolka Gabiley